وكا دستوركي شرعي دالكني دربة بقادي هذه أدوان نرتوي سود وين أو سيرك وسيرة حيلك قولياشة يرحمها دستورك مدن محمد حاجي وما أنت دقمة أحمد مع هارون كسوي مدن وسير كسود دقمة هذا أحمد مع هارون وحنا هذه وقوم هنقينا وسيرك وسيرة دبا وحنا هذه وقوم هنقينا ما دام إن السوق جالسين شن مع الموضوع هل كنت بركو قادرين إنه هدان هاي بالشدة دقمة أحمد مع هارون شن تام مع الموضوع وبالشدة دقمة أحمد مع هارون قيبه هذا كل الدول سيدا وضياشة حافظة iyo macallimiinta aqoon-yahanka culimada haweenweynaha dhalinyarada inta waxa la barayay waxa fiiskan lagu barayay degmada Axmed Macalin Haruun tababarna lagu siilayay barashada dastuurka iyo wadaniyada waxay tahay madana wasiir aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa wax qabadka ballaaran waxa weeyaan bulsho badan oo waxa weeyaan dastuurka aan fahansaneyn ba aad iyo aad ula rayaaqday way soo dhaweeyeen barnaamijka barashada dastuurka in bulshada la gaarsiiyo madana wasiir adiga wasaaradda waxaan kugu amaanaynaa wasaaradaadaba shaqada fiican ee qaranka aad u haysaan bulshada qarankan aad u haysaan aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa madana wasiir maadaama aad soo gaarsiisay dastuurka arrimaha dastuurka iyo wadaniyada waxay tahay aadna waan kugu amaanaynaa intii aanu shantii maalmood halka aanu joognay wax badan baan fahanay qodobo badan waxa xaqna lagu leeyahay waxa xaq dawladda aan ku leenahay ayaanu baranay oo aan ogaanay waxaan kala u mahadnaqaynaa macallimiinta tayada leh ee aad noo soo dirteen ee waxa weeyaan waqtigeena geliyay وكا دستوركي شرعي دالكني دربة بقادي waxaan aad iyo aad halkan uga hambaliyeynayaa Xaaji Maxamed oo ah wasiirka xiriirka golayaasha iyo dastuurka aad iyo aad baan u soo hambaliyeynayaa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa halkan maanta taaganahay amba aanu shalay taagnayn hore umaanaan taagnayn in badan waanu shaqaynaynay bulshadaanu ka dhex shaqaynaynay dawladda hoosaanu ka dhex shaqaynaynay buuriya banaanba oo la maray socod iyo lug haddana alxamdulillaah rabbil caalamiin inta noo korodhay shantaa cisho damaanaan ku hayn gacanta habigana kumaanaan haynin dastuurka qeexun baanu maqlaynaa annaga iyaga dawladda dhex qaadayna dastuurka qeexay dastuurka diiday dastuurka ogolaaday soomay dhaafahaynin saddexda dhadhaar ee dawladda xukuma maanta laakiin wuxuu taagan yahay aqal iyo qodob in loo taabto maasha Allah alxamdulillaah waxaan ugu mahadnaqaynaa wasiirka aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad bay bulshadiisu u jeceshahay wasiirka halka keenay hawsha adag uu inta badan la baaxaadegayay soo daadajiyay ee waxaan ku bulshadii heer degmo ahayd marinaya jisa Allah khayr ilaahay baa ka abaal marin وكا دستوركي شرعي دالكني دربة بقادي halkan imaka fadhiya wasiir waa dadkii deganaa degmada Axmed Macalin Haruun xafiiskan waa xafiiskii guddiga nabadgelyada bini'aadmigu marka horta uu isku duubnaado uu madax ilaa mijo isku duubnaado wax qabsada waxaan maanta wasiir adnoo keentay halkan dadka lagu barayaa waa qofku wixii uu ku garan lahaa waxa uu xaq u leeyahay iyo waxa aan xaq u lahayn dadweynuhu imaka bugaag kaalayna siiyey waa dastuurkii qaranka waxaad xaq u leedahay ee aad haddii lagugu xadgudbo ku dacwoonaysa dastuurka kuma taalo qodobkaasi aad leedahay weeyaan maaha maanta oo keliya inta seminaarku socdo akhrino inaynu meel ku tuuro waxa loo baahan yahay inaad qodob u fahanto oo aad u jilciso oo baritoole adigoo aan buugii sidan aad ku doodi karto wax xaq u leedahay waxaan xaq u lahayn haddii aanad imika fahminna goodhowdii oo halkan kaga kacdaan goodhow kuma doodi karto wasiire intii imika qaranku jiray ee aynu Soomaaliland ahayn wixii hawl qabanayay waa hawshii ugu muhiimsaneed baad loo keento
aad baanu taa kaaga mahadnaqaynaa waxa weeyaan waa isxilsaar iyo wadaninimo waxaad u soo qaadee tiri war bal waxaanaynu hayno aan ku magacaabanahay dee dadkii khuseynayaan gaarsiino aad baanu taa kaaga mahadnaqaynaa macallimiin aad u qiimo badan oo isxilqaamay oo dul qaatay oo 12 iyo siyaado ka rawxaaya horta noo soo dirtay aad baanu taana kaaga mahad celinaynaa waxa weeyaan wasiida ilaahay baa horta dee kaajisaysiin doona waayo bulshada dibad dhex fadhida maanta waxaan qabaa dee wasiirada kale ee kula taytalka ina wali wasiir bulshadiisa dhex yimid oo halkan noogu yimid oo maxaa qabtaan leeyli ma jiro dee waxa dheer tahay baan qabaa wasiirada kula taytalka ah waa muwaadinimo ku jirta dee dhiigaaga maadaama aad garatay waxaan ku taytalkaaga wuxuu yahay iyo arrimaha dastuurka wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka waa daadejisay heer degmo maraya maanta berrina wuxuu gaari doonaa heer xaafadeed oo halkani waa degmadii xaafadda Axmed Macalin Haaruun laga maamulayay Axmed Macalin Haaruunna xaafaday leedahay faracyo ilaa halkaas uu gaari doona markuu gaadho maxaan ku ilaaldaa xaafadaha ilaa guriga walow maanta ilaa gurigii joogo hooyadii sidato buugi oo inantii sidato oo odaygii sito isagoo si toos ah dee gurigii u tagay haddana isagoo ballaano inta ka ballaano buu guriga ugu tagi doonaa dadweynaha aad baan kugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee xilkasnimada ah ee aad waliba noo soo kormeertay ee tiri bal wixii aan dadka u daadejiyay halkuu marayaan soo eego aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa waka dastuurkii sharcigii dalkeenni durbata baqaade ayaa idinkoo shaqooyinka haysaan aynu garanayno iyo duruufaha jira mid caafimaad iyo mid daneedba ay isu soo xilqaanteen inay halkan muhiimad siisaan oo barataan dastuurka iyo wadaniyadda run ahaantii waxaan ognahay xaafaddu in maamulkeedu degmadu in maamulkeedu shanta cashaba uu si wanaagsan oo maamuus iyo milgale ay u socdeen casharadu waxaan u madaxweynaha gudoomiyaha iyo ku-xigeenada iyo guddiga nabadgelyada guddiga arrimaha bulshada hablaha runtii iyo raggaba firfircoon ee hawshaas sida lixaadka uga qayb qaadatay ee wadaninimadu ay ku jirto waxaynu ognahay inteena waaweyn duruufihii uu dalkan soo maray dastuurkan maanta quruxda badan buugan ku qoran horta dastuurku marka hore waa waxay ummadi ku heshiiso inay isku maamusho adduunka oo dhan uu ka maarmi waayay inagu islaam baynu nahay oo diinteena islaamka ayaa asal u ah oo qodobka shanaad haddaa eegtaan waa barateene waxa weeyaan dastuurkeenna shareecadeenna islaamka ayuu u noqonayaa oo wixii aan waafaqsanayn shareecada waxba kama jiraan weeye waxay noo raacaysay madaxweynaheena maanta jooga Muuse Biixi Cabdi iyo xisbigan dadkii soo saaray oo doortay idinka ahaydeen idinku haddii aad doorateen waxaynu xasuusanahay inay ahayd oo aynu isku wacyi gelinaynay waxaanu fulin doonaa haddaan na doorataan sarreynta sharciga soo saa ma ahayn sarreynta sharciga si uu sharcigu u sarreeyo oo qofku xuquuqdiisa uu helo oo u garto
oo ta isaga lagu leeyahay uu ku xadgudbayo garasho u yeesho uu kaga baydho dawaanana markaa dastuurkii bulshadeena gaarsiina oo sidoo kale uga sheekaysan u daadejina annaguna waxaanu nahay uun adeegayaal u adeegaya bulshada wixii naloo igmaday ee idinku aad nagu doorateen ee ballanteenu ahayd baa ahayd sidaa inaanu bulshadeena soo gaarsiino bulshadeena ilaa heer degmo ilaa heer xaafadeed dadka ugu muhiimsan ee qarankan laf dhabarta u ah waxa weeyaan waa bulsho weynteena oo haweenku ay koow ka yihiin sidaa daraadeed waajibka aanu qaadanay baan nagu kalifayaa inaanu idinku nimaadna xaafadaha iyo degmooyinka annagoo u imanayna dadkayagii waxa weeyaan wanaagsanaa ee duruufaha maanta aynu soo marnay oo dhan kala soo dabaashay qarannimadan aynu ilaashanayno ee aynu badeena iyo barigeena iyo hawadeennaba ku ilaashanayno si wada jira waka dastuurkii sharcigii dalkeennii durbata